injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 12aad waxyaalahaas dabadeed Ciise ayaa mar kale xertii isugu muujiyay bad Tiberias agteeda oo sida tan ayuu isu tusay waxa wada joogay Simon Butros iyo Thomas ka la yiraahdo Didumus iyo Nathanael oo ah kii kaana tii Galili iyo wiilashii Sabedi iyo laba kale oo xertiisa Simon Butros wuxuu iyaga ku yiri waa soo kalumaysanaya markaasay ku yiraahdeen annana waanu ku raacinaa markaasay tageen oo doonida fuuleen laakiin habeenkaas waxba ma ay qaban laakiin markii waagu bariyay Ciise wuxuu taagnaa xertiisuse ma ay garanaynin inuu Ciise yahay markaasaa Ciise haddaba ku yiri carruur yahay wax la cuna ma haysan waxay ugu jawaabeen maya markaasuu ku yiri shabaga ku tuura dhinaca midigta ee doonida waadna heli doontaane haddaba way tuureen oo ma ayna karin inay soo jiidaan kalluunka farabadnaantiisa aawadeed kii xerta oo Ciise jeclaa ayaa ku yiri Butros waa sayidkii haddaba markuu Simon Butros maqlay inuu sayidka yahay ayuu dharkiisii guntaday waayo wuu qaawanaa oo wuxuu isku tuuray badda laakiin xertii kale waxay ku yimaadeen saxiimada yar waayo kama ay fogeen dhulka laakiin waxay u jireen qiyaastii 200 oo dhudhun waxayna jiidayeen shabagii kalluunka haddaba markay dhulka u soo degeen waxay arkeen dab dhuxula iyo kalluun saaran iyo kibis markaasaa Ciise ku yiri iyagii keena qaar kalluunkaad badda ka soo qabateena haddaba Simon Butros ayaa saxiimadii fuulay oo wuxuu xagga dhulka u jiiday shabagii oo ka buuxa 150 kalluun oo waaweyn oo inkastoo ay farabadnaayeen shabagii ma dilaacin markaasaa Ciise wuxuu iyaga ku yiri kaalay oo quraacda oo xertii midkoodna kuma uu dhicin inuu yiraahdo kuma tahay waayo waxay garanayeen inuu sayidka yahay kolkaasaa Ciise yimid oo qaaday kibistii oo siiyay iyaga kalluunkiina sidoo kale taas waa markii saddexaad oo Ciise xertii isu muujiyay markii uu kuwa dhintay ka soo sara kacay dabadeed haddaba markay quraacdeen dabadeed Ciise wuxuu Simon Butros ku yiri Simon ina Yoonisow kuwan ma iga jeceshahay wuxuu ku yiri haa sayidow waad og tahay inaan ku jecelahay markaasuu ku yiri baraarkayga daaji haddana mar labaad ayuu ku yiri isaga Simon ina Yoonisow ma jeceshahay wuxuu ku yiri haa sayidow waad og tahay inaan ku jecelahay markaasuu ku yiri idahayga ilaali mar saddexaad ayuu ku yiri Simon ina Yoonisow ma jeceshahay Butros ayaa ka calool xumaaday waayo wuxuu markii saddexaad ku yiri ma jeceshahay markaasuu ku yiri sayidow wax walba waad og tahay waadna garanaysaa inaan ku jecelahay Ciise ayaa ku yiri idahayga daaji runtii waxaan kugu leeyahay markaad yarayd adigu waad guntan jirtay oo waxaad mari jirtay meeshaad doonaysay laakiin markaad gabowdid gacmahaad kala bixin doontaa oo mid kale ku guntin doona oo wuxuu ku qaadi doonaa meel aadan doonayn wuxuu waxaas yiri inuu tuso dhimashadu Ilaah ku amaani doono markuu waxaas ku yiri dabadeed wuxuu ku yiri isoo raac Butros markuu jeestay wuxuu arkay kii xerta ahaa oo Ciise jeclaa oo daba socda isagu wuxuu ahaa kii laabta Ciise ku tiirsanaa waqtigii cashada oo ku yiri sayidow waa kuma kan ku gacan gelin doona haddaba Butros markuu arkay wuxuu Ciise ku yiri sayidow kana ka waran Ciise wuxuu ku yiri haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imanayo maxaa ka galay adigu soo raac haddaba waxa walaalaha ku dhex faafay hadalkaas oo leh kaas oo xerta kamid ahaa ma dhiman doono laakiin Ciise kuma oran ma dhiman doono wuxuu ku yiri haddaan doonayo inuu joogo ilaa aan imanayo maxaa ka galay kan weeye kii xerta ahaa oo u marag furay waxyaalahan oo qoray waxyaalahan oo waxaanu garanaynaa maragiisu inuu run yahay waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo Ciise sameeyay oo haddii mid loo wada qoro waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaadeen buugagga laga qoro